السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرضيدا كسر ودا 10 كي أفراد شابتر كيسة أما يونت كيسة كواد وين كبرنيني مفتول شابتر كم waxaan ku baranaynaa awoodaha dheeriga ah oo leeyahay maftuul. chapterkan waxaan ku baranaynaa qaabadaad kale oo uu u shaqeeyo. tusaale awal waxaynu adeegsanaynaa inaynu halkan labadan sheeb oo inagu aynu sameeysanay kolba midka aan u baahano aan dhaqaajino. laakiin ma ogtahay halkan inuu ka howlgalo maftuul. halkan waxaynu u naqaanaa layers. ereyga layers waa dabaqado ama la kabyo isa saaran. hadda waxaynu u jeednaa sawirkan guud oo magaciisu uu yahay background, balse kor waxaynu ka aragnaa rectangle 1 iyo rectangle 2 waa labada shay ee halkan saaran. maadaama toolka labaad aynu ku sameynay oo ahaa rectangle, haddana u fiirso halkan ayuu ka howlgeli karaa. hadda labada tool haddii aynu maartay mid colorka ka bedelo, tusaale kan hoose ayaan colorka ka bedelaynaa. waxaan ka dhigaynaa blue taqti aan ka dhigaynaa. haye marka blue maadaama uu halkan layer ahaan hooseeyo, halkan isaga ayaa sareeyay u fiirso. marka inagoon halkan adeegsan ayaan halkan adeegsanaynaa, labadooda isdaba marinaynaa. tusaale hadda sidaad aragtay halka kaaga muuqata labada blue midka taqtiga aba hooseeya. bal markaas awoodda uu leeyahay halkan inuu ka howlgalo fiirso. halkan waxaad u jeedaa in lead gray ah uu saaran yahay. leadkan grayga wuxuu tilmaamayaa inuu highlight inoo yahay shape-ka koowaad oo ah kan. rectangle-kan ayaan waxaan qabanaynaa left click, kadibna kor ayaan u jiidaynaa. sida u jiida waxaa soo baxaya laba calaamado xariijima kuwaas oo sheegaya inaad labada layer isdaba marinayso ama ay aad kala kor marinayso kii hoose aad kor geynayso. bal hadda u fiirso, aan sii dayna marka. sidaad arkaysay awal waxaa sareeyay layer 2, balse hadda waxaa sareeyay layer 1. awooddaasna waxaa iska leh maftuul. haye taas waa awooddiisa koowaad. haye halkan shaashada weynu adeegsano. haddii aad halkan taabato iyo haddii aad halkan taabato, labadoodaba waa isku sii. tusaale hadda laba shay oo kala shishayso aan la arkin ayuu isdaba marin karaa. hadda waxaynu yeelaynaa background-ka oo sawirkaas ah ayaa waxaan ka qaadaynaa qafiilkaas. sababta awood uma lihiin ilaa qafiilkaas aan ka qaadno inaan shape-kan iyo layer-ka ama garanaysaa ee background-ka isdaba marino. bal haddaan isku dayno inagu qafiil ka qaadin, waa kaas ma isdaba marin karno. sida u jeedid calaamad cross ayuu soo saaraya oo mamnuuc ah. balse markaynu ka qaadno waxaa dhaca u fiirso. click haddaynu qafiilkaas siino, waxaa highlight la saaray dhammaan sawirkan meesha ka muuqda. gabi ahaantii sawirkaas qofkaas meesha ka muuqda sawirkiisa waxaa afarta gees ka saaran kuudad ama maarta batomo cadaan ah, waxaana ku wareegsan calaamad buluug ah taasoo muujinaysa in layer-kani ama magaranaysaa documentigani auna xirnayn. haye hadda waxayna highlight saarnay shape 2 ama rectangle 2. bal hadda hoos aan u jeedno marka waxaa dhaca fiirso. waynaga qarsoonay sida aragtay. sababtuna waxay tahay in magaranaysaa sawirkan guud oo meesha yaala uu ka weyn yahay rectangle 2 oo rectangle 2 uu yahay shay gaaban oo intan leeg. laakiin sawirkani uu dhammaan fiidka shaashadaas uu haysto. marka sidaas waynu soo ceshan karnaa. haddana kor ayaynu soo celinaynaa. markaynu soo celino waxaan qabanaynaa left click, kadibna waxaan leenahay kor u jiidna oo left click hayna ilaa calaamadaha buluuga jiidka nooga soo baxaana waynu haynaynaa. bal hadda sidiisa ayaan ku soo celinaa ujeedaa. awooddaas waa awoodda uu leeyahay oo kale. awoodda kale uu leeyahay waxay tahay, tusaale hadda waxaan rabaa inaan qaado journalistkan ama baaskan ayaan rabaa inaan qaado. baas haddaan qaado halkan geeyo, waa tool dhan oo kamid ah banaliska. panel dhan oo kamid ah banaliska weeye ayaan halkan geeyay. awooddaas waxaa iska loo qaaday waa maftuul. ma jiro mid kale awooddaas leh oo qaadi kara. haddana isaga ayaan ku qaadayaa bartii ay marka linkaas ii soo baxo
buluuga ayaan sii deynayaa balse ceebta dhacday ma taqaan asagii ayaa waxa loo sameeyay mid cusub yani panel magaranaysaa rug cusub oo fariisto oo kuwii hore uu ku jiray laguma darin sidee baynu ugu daraynaa markaa waxaynu ugu daraynaa hoos ayaan u jiidaynaa markay halkaas joogay hoos ayaan nagu lafti kaliya haynaa ayaan halkaa ku sii deynaynaa bartiisi ayaa lagu daray sidaa ujeedi oo halkan oo waxaa inoo yaalay layer journalist iyo bath marka maadaama aynu layer joogno waxaad aragtaa inaynu layerkeeni uu ku soo noqday bartiisi oo bathkii aynu la soo sinay journalist iyo layers marka awoodahaas ayuu u leeyahay inuu wax kala shaandheeyo kolba shay dhaqaajiyo meel geeyo ayuu awood u leeyahay asagu shaashadan inuu shay dhaqaajiyo maahe shay kuma sawiri karo sida shape-kan uu u sawiray rectangle tool oo kale sidaas marka waxaa muuqata inuu yahay shayga koowaad asaasiyaadka oo qofku u baahan yahay inuu adeegsado tusaale hadda kan ayaa highlight oo magaranaysaa rectangle-kaas blue ayaa highlight maadaama isagu highlight yahay sidee highlight-kan marka uga qaadayna shayga ilaa waan sawirin inaan ka qaadno u baahana inagoo weli joogna move tool waxaynu click siinaynaa halka madow shaashadoo kale ayaan click siinaynaa si aan uga qaadno highlight ka saaran haye aan click siino waad u jeedaa waa laga qaaday marka isaga iyo rectangle farqiga u dhaxeeya bal aan fiirino rectangle move tool waxa awood u yeeshay inuu shayga marka highlight ka qaadayo shaashada meesha click shaashada wax uu geysanaya malaha bal rectangle aynu ku noqono isaguna shaashada yeelo rectangle asal waxaa loogu talagalay inuu shay sawiro sidiisaba haddaan halkan ciladaasha magaranaysa aan click siiyo wuxuu soo saarayaa properties oo ah sizeka marka aan u baahan inaan isticmaalo haye bal aan click siiyo halkan waxaa kasoo baxay height width iyo height oo ah 40 gees ee shape-kan meel kastoo aan ku taabtana width iyo height ayuu ii soo saarayaa haddii aan rabo inaan shay ku sawiro waa inaan jiidaa marka hore saas ayuu wuxuu sawirayaa shay kale marka isaga waxaa loogu talagalay in uu wax sawiro ma loogu talagelin in uu magaranaysaa dhaqaajiye noqdo dhaqaajiye waxa iska leh waa move tool magaca dhawaaqsiga ka muuqata inuu shaygan dhaqaajiye casharkii afraad ama darsigii afraad unitkiisa koowaad halkan ayuu ku egyahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku sii barano qaybo kale oo muhiim ah oo inaga caawin doono insha Allah taala